بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن داوديال meel kasta aad naga daawanaysaan waa barnaamijkan Dambal TV oo aad idinka iman jiray wadanka Saudi Arabia gaar ahaan bariga Dammam iyo magaalada Cardiff ee cariga Ingiriiska oo indhawaalaba inooga daadihinayay wariyaheena Ismaaciil Ducaale Ismaaciil Aftaag balse maanta wuxuu si toos ah idinka imaanaya magaalada Dammam ee cariga bariga Saudi Arabia waxaana hoyga stuudiyaha Dambal TV martin noogu ah مبارك عبد الشير أو سياسي مرنا جناعسده مبارك أنا كهرين نورت برامج كوسو دوينينا أهلا وسهلا هذا بعض ما أحسن تحاول أدقي خلاص حافظ مبارك أنت أنا أقدم برنامج كا أنا وحنا كوينا مبارك عبد الشير أدقنا وحاتر هذا آلابا مبارك عبد الآر بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي waxaan aaminsanahay magacan horta waa naanays aniguna ma lahayn aabahay baa lahaa laakiin marka xayawaanka la eego gabi ahaantiiba wuxuu noqday xayawaanka ugu xooga weyn insaanka isqabto la yiri waxa ugu xooga weyn adduunka inoo geeyay dabadna waxay yiraahdeen waa qorraxda iyo dayaxa dabadna waxay yiraahdeen anaga labadii dayax iyo qorraxdii waxay yiraahdeen waxa naga xoog weyn dabaysha daruurta oo naqarisa daruurtiina waxay tiraan anigana waxay ga xoog weyn dabaysha oo meeshay doonto iyo tuurta dabayshiina waxay tiri waxay ga xoog weyn buurta oo aan dhaqaajin karin buurtiina waxay tiri aniga waxay ga xoog weyn jiirka oo intuu halka ka galo meesha kale ka baxo marka sidaa la ajligeed anu waxaan aaminsanahay inuu yahay asad marka saasan hadii jeer aarka ula baxa aabaan u garanay mubaarak waxa tahay siyaasi ama aqoonyahan u ololeeya qadiyada maamulka khaatimo إن دول واحد مودا قد يدخل بسدي ما ممكن لو سميه إن ده دقائق كل دول دجانا دي لقوا وضي يدبدبه مركها أنت أنا وربحين تقول قد بين بقى وربحين توقفان قد يدا خاتمة دول ليسيد بل وربحين كوبان نجسي ده واحد في يا واحد هذا قليل عن التعريف ويكقن السنة هاي خاتمة وحلا بحيو التعريف مرون بس فدا الدولة نمو لقسل قاعدة صحدير وطها لوجو حراي صون كخاتمة الصول هي السنة هي التلاح بيكوس عطايا الصمير يدلقات بيربطها لقسل قاعدة وحنفيل يدد كيد يدل كيد لا بضع بين لقرنا يو ما أنتنا أنا أبهني مستواها أي دافتي ما كاسم لهن عاو سؤال يسأل ويديني وانقرن مركب هذا هي جواب ماله قليل عن التعريف مبارك وحين نقول قلنا إن مامورك خاتمه واحد شرا مامورك هراء تلاح لقوا أساسي نمان يبغوا كتر سنة ويبغوا قروا وتشوجا وأنت بدن عدول كأصله نمان كخاتمه بين التشوجا يقولنا إنهم با مامورك أنا قابل وضنو عيد نقدم بس ما جرتو أنت هذا كورا فريق أنا وفريقي ماشي اللودي بي عندنا أنا الله حساب ثمين يقولنا شيكتي إن يهين خايمين لونا كلا بحي خاتمه إيه خايمين لما أفكي سلقة محل سيو وفريق تلح كسود دولي اللي بعتذا فرح بدل لك جيستي مرشحين تستقر لقي بوتلان الله يو سلوا على قرضيو قضية خاتمه وفريقي كوقالي تلح أورطة حدو نفردها كبحيي مركا محكمة iyo waxay sugayaan waqtigeena la muxaakamadeyn lahaa maalkii loo dhiibay kama xisaabtamin oo sidii bay ula tageen maamulka gacantii bay ku hayeen waa mas'ala waqtigeeda sugaysa marka kuwaasi khaatimo kama tirsana waxay yihiin iyaga sheegtay cid ay u shaqeeyaan dad wala garanaya waxa jirta mubaarak ilaa tan intii maamulada SSC baan ka soo bilownay ilaa maanta khaatimo ah waxa jira labada maamul Somaliland iyo Puntland caqabad ay ku hayaan deegaanada ama shacabka ama maamulka laga sameeyay arintaas hadaatiin qadiyada khatmo dadka oo orolaya ma isweydiiseen maxaa shacabka ku qancinaysan labada maamuli qadiyada ay mar walba u istaagayaan maamulada ka soo baalka niyada meesha waa iska waadix weeye waa meesha waxa ku jirta tharwad iyo dad baa jooga deegaankeeduna waa ballaaran yahay tharwadina way taala marka waxaan filayaa mahmaha waxaan u heli karayaa oo dhan karaya waxa jiray nin xoolo lahaa oo caabid ahaa xoolihiisa iska maala iska deganaa dabadeedna ay u heshiiyeen shaydaan iyo tuug wuxuu yiri xoolahan qaadanaya shaydaankuna wuxuu yiri waa luminaya xaqan ka jeedinaya labadii markaa waxay ku heshiiyeen in ninba wax qaato laakiin waxay isku khilaafeen kee hor qaadanaya kii rabay inuu xoolaha qaataa yiri waxaad yeelaysaa ha lumina intaan anigu xoolaha qaadanaya
kii kalena wuxuu yidhi intaan anigu luminayo xoolaha qaadanay dabadeedna qadiyadaasi way isku khilaafeen marka waa tuuga iyo shaydaankaasaan odhan karaa qadiyadda khaatumo waxaa la doonayaa waa dalka iyo dadka iyo xoolaha wey waxaa la rabaa in la qaataa ee duulaanka lagu yahay iyagu heshiis ma ku yihiin laba arrinta taxsabuhum jamiica quluubuhum shata waxaa laga yaabaa inaad is idhaahdid waa isku mid laakiin waxyaabaha qaar bay kala duwan yihin waxna waa ku itifaaq waxa ay itifaaqa ku yihiin waxa weeye inaan khaatimo jirin taa waa ka siman yihiin laakiin waxay ku kala duwan yihiin habka loola dhaqmayo waan garanay marka waxaa leedahay qolana dhulki bay rabaan qolana dadki bay rabaan laba waa waadax weeye okay waxaa jira siyaasiyiin badan oo kasoo jeeda deegaanada khaatimo haba ugu horeeyo xaabsade somaliland dhowr jeer buu tegay oo mansabi laga siiyey puntland laftigeeda dhowr jeer baa mansabiye laga siiyey dhinacan markuu tagayo dhinacanba xil baa loo magacaabaa muxuu maamulada u sheegaa oo qadiyadda lagu sii xirxaynta waxaa jira anigu horta mid waan aad iyo aad baan qofka bani aadanka lagalama masuugo waxa uu leeyahay mabda ahaan aan ku diidanaado laakiin fanul iqnaaca intaa leeg inuu 2 jeerna ka gashado puntland 2 jeerna somaliland waxaan u qirayaa in uu qancin karayo oo iyagana uu ka dhaadhiciyey waxaa jira qisas la yidhaahdo qisaskii kamil alkaylani shay yudkar bishay bay yidhahdaan waxbaa lagu xusuustaa ninkii ku qancay ee qaatay wixii uu maqlay diidayna wixii uu arkay mathalan mithaal wuxuu aqbalay oo uu mataqaanaa wixii uu maqlay ninbaa wuxuu ahaa masaajid buu joogay masaajidka markuu joogay baa nin ayaa jeebadiisii gacanta geliyey markuu gacanta geliyey buu gacantii ku dhigay markuu gacantii ku dhigay buu dhaarto yidhi wallaahi kuma xadayn markaasuu yidhi aamantu billah wa kafarat bima ra'at cayni ilaahayna waan rumeeyey waxa ishaydu aragtayna waan beeniyey oo radska tag kaas mid buu ahaa mid kalena 4 nin ayaa waxay usoo galeen nin tuuga 4 nin oo tuuga bay ahayd nin bay usoo galeen alaabtii markay urursadeen buu ninkii guriga lahaa kacay markii uu kacay ayaa ninkii weynaa ee nimanka hogaamiyaha u ahaa wuxuu damcay inuu khayaameeyo ninkan dabadeedna wuxuu la hadlay nimankii tuugtaa wuxuu ku yidhi waxaa jira xadiis odhanaya ninka faqiirka ee aan waxba haysan inaad iskaga tagtaan haddaad iskaga tagtaan idinku awoodi karaya inaad dhacdaan oo aad u tagtaan 100 tuugo oo aad samayseen baa ilaahay idinku dambi dhaafaya sidaa laajligeed ninkan waxba ma haysta waynu iskaga tegaynaa si ilaahay noogu dambi dhaafo waynu ka tegaynaa markaa ninkaa aynu faraha ka qaadno aynu iska dayno markaa sadaqa bima samic wuxuu rumaystay wuxuu maqlay wakadaba bima ra'a wixii uu arkayna waa beeniyey markaa waxa weeye wuxuu ku qanciyey waa fanul iqnaac cajiiba laakiin waxa uu meesha kala kulmay isaga ee lagu sameeyey yacni waa wax la odhan karo wixii farasku kaga cararay ninkii uu shaqaynayay waxaa jiray faras ka baxsaday ninkii uu shaqaynayay dabadna waxa la maxaad u baxsatay libaax buu ugu tegay ay dabadna waxa la maxaad u baxsatay uga soo baxsatay ninkii aad u shaqaynaysay wuxuu yidhi yajuuc albadni wa yafqi dhahri calooshaydana waa baahiyey waa dushaydana waa raray bacdamaa 10 geeriya ilaa saxdheer duulaankeedii ilaa halaaga ka dhacay markii laga dhamaystay la yidhi waanu ka dhamaysnay cidlo lagaga tegay dadii lahaan laga fushaday ayay waxay kaliftay wixii xayawaanku gartay deenu garto idhaahda ka carar saas Somaliland uga hadda Puntland waxay sheegeen in xabsade uu yiri markii hore aniga dhibay la saanood maanta aniga soo celinaya Cabdi Weli bal arinta ka waran isku day karama labaad bar inuu tii hore kala xakabida ma aaminsani qolyahan ay meesha ku kulmeen ee ugu tageen waa fariiqii isaga ka soo horjeeday laakiin waxa jira waxba wax lagu cabiraa waxaana laga yaabaa inay digniin noqoto bahalkan la yidhaha dhidar ayaa nin asadi wuxuu maqlay dhidarku inaanu hilibka cunin dabeedna wuxuu yidhi kaala ii shaqee dabeedna wuxuu kuu shaqayn maayo sababtu waa maxay buuli haddaan kuu shaqeeyay buuli 2 cadow baan yeelanaya 2 cadow maxay yihiin inta boqor iyo asadkaagana kula socotaa cadow bay noqonayaan masabkay doonayaan inta kaa soo horjeedaan cadow bay yihiino masabka iyana waxa weeye dee adiga cadow kugu yihiin
marka meesha waxaa ka muuqata shirqool baa meesha ku jira sirse ma fakin haddii aan dee cid wax u tilmaamo haba noqoto hadday doonto marka waxaan u qabaa in meesha ay ku jirto sir weyn waayo mansab laysuma ogola oo gruubkani waa gruubku shalay ka baaciyey laascaanood ninkii shalay maanta milyankii 800 ka qaxiyey dee waa mustaxiil inuu maanta ummad masiirkeed hogaamiyo marka meesha waxaa joogaa waxa weeye kuwii isaga ka dembiga waaweynaa ee dadka laayay ee taleex ku laayay kuwii ka baxsaday khaatumo intii dembiilayaasha haba meesha isugu tegay laakiin waxaan ka yaabayaa meesha in shirqool ku jiro labada cadow u dhow xitaa wax u magacawday inay sababaan cadaawad 25 qof group oo ku jiro 25 qof ayaa Cabdiweli Gaas magacaabay qadiyada dhulbahanteed sidii deegaanada ugu soconayay Puntland waxa xabsida si hormud ka yahay dad kale oo nimanka khaatumo markii hore ku jiray xagga ni wareegay kamid ka yihiin markii hore way kala fikir duwanay maantana 25 group qof Cabdiweli Gaas xukumay ama uu yiri waa qadiyada dhulbahanteed qaabilsantiin soo celiya bashan ila tanka iyo Cabdiweli arrimihiisa marka hore ما في ليو سيد هورتا وحى أفريقيا اللي هذا قوات بالوجوه وحنا الله اسمه السيو ما في ليو إن ما كي بحيي إنا يبان تدي بسوق علينا وحول يبان الطريق بيليه عدة دون يسا إنا وحقبتها وموقتها وقول الله خاتمه فرصتها أي لومية يجينا اللي بس سامح لها مجتمعنا يدي بقول صار نقول لها وين لوسكريان وين كلمتها ده هدانا هين قاتلكي انتو نينكا ديلay jinaasadiisii raacay hadaanay ahayn ma garan karayo siyaasadda wajiga caynkaasa u dhigmaysta kama raja qabno uma maqna waxay u maqan yihiin danahooda gaarka tusaale yar baa ku siinaya gabadh la family ah ninka la yiraahdo Cabdiweli ba aniga waxa wada hadlaynay Ali Cabdi Umal marka waxay tiri intii ilaahay nacay ee aad u liitay ee dambiilayaasha ahaaba Puntland timid wali gabadh ka garawshiya badan maan arag anagu garan kari weyn iska saara kuwan tolkood buu ka yimaadeen waxna idin tarmaayeen gool walba xisaab bay la taagan yihiin inta sharafta lehina waxayna kaga maqan tahay kuwaas ay eeganaysa oo diidan tahay marka anaga dhibaatadana haysata waxa weey waxaan kala garan karay la'anahay kuwii xunxumaa iyo dadka sharafta lahaa midna waan kuugu daraya يعني marka la eego Puntland yaanay haysanin badhul laakiin dhibaatada ay ku qabto iyo rabashka waa miisaal basiida baarlamaanka Puntland waxa ku wada jira reer fara badan reer la leeyahay baarlamaankiisa ana idin xulaya oo harti ah oo aan dhulbaanta ahayn miyuu jira baarlamaankii bay qaateen wixii la qaybiyay qaybtii u badnayd bay qaateen kaga maynaan daba tageen hani aan baynu nid intii soo hadhay bay anaga idin isimaho idin qaybinayna maxay tahay sababtaas waxaan ma ahayn waxay u baahan tahay tafsiir bay u baahan tahay tafsiirkay u baahan tahay waxa weeye in qofka bani aadanka ilaa qiyaam saac isaga hoos joogo ra'yi kale lahayn laba waxyaabood haddii taladana lagaa qadiyo xukunkana lagaa qadiyo ihaana dambe ku hadhay ma jirto qoladan khaatume ee ka cadhootay meesha markii hore iyagaa meesha wax ka dhisay waxay uga tageen annagu kamaan tagin iyagaa naga soo ediyey waxay uga yimaadeen markay xukunkiina wax ku yeelan waay taladina wax ku yeelan waay warsangeli baarlamaankiisa cid uma qaybin ma jeerteen cid uma qaybin wax lala yaabo miyaanay ahayn wax aqli bani aadana yani ano cid la marayaan aad ma waxa mandiqa waxaan kuu goynayaa ma uriikum ilaa ma araa wamaa ahdiikum ilaa sabiila rashaad talada taydun baa soconaysa taadu socon maysa waxna goosan kari maysa insaan aqbali karayaa ma jiro اوكي أضبط ما سنتي مبارك ولي داود يلو حين كوكو دجنا قايبتيني لباد بين كوكو دجلينا برنامج كنا ندبال تي في ومات مرتين ويا هاي مدن مبارك عبد الشير أما كنا قدام مبارك عبد آر إن مبارك عبد ولي كاس ما له ودي وريسي وبحيي وريا وريسي وحكو يري كرادة كسر كذا خاتمه لما أنتوا تقولوا ودي تشوفان وريو وكعلي وحو يري كرادة نجم مكان متشو مع عبد ولي باسحن mise oo inta garow joogta garaada mise garaada kala jirin nimanka garaadada ah ama garow ha joogeen ama saxdheer ha joogeen ixtiraamkoodii taqdiirkoodii leey dhowr boqol oo qof baa kun baa nin waliba culaadooda nabadgelyadooda haya nimanka xogaa waa laga yar wareega
waxaa la qaatay qolyaha siyaasiyiinta inaan bacbacsano laakiin garaadada haddii ay gefaanna bashar weeye haddii ay asiibaanna bashar weeye oo de insaanku yusiib wa yukhti laakiin waxaan jeclaha meel kastay joogaan waa garaa ama ha joogo magaceedii maxaa ku sheega muqdisho ama ha joogo saxdheer ama ha joogo garowe markaa nimankaasi waa garaado hadday puntland joogaanna waa garaado wajahata nadar baa jira waxaana u baahan mas'alada qolada reer khaatuma u ololaysa looga baahan yahay waxa weeye garaadadani waxay ahaayeen maanta tegay meesha la yidhaahdo garowe habkii garaadadaa loo soo celin lahay qadiyadda looga dhaadhicin lahaa waa shay muhiima una baahan in la daraasadeeyo la lafaguro si kasta loo eego waa garaado lagama maarmo anaa idhina ma soconayso laakiin waxay ku wacan tahay talada in ninba dhinac iska taago nin ka saari karaa ma jiro taladay wax ku leeyihin qadiyaddan waa qadiyad la wada leeyahay laakiin qofkani waxa uu tabanayo laabudda an yusmac likalaam dadkani waxay tabanayaan bal in la dhegaysto waa lagama maarmaan qadiyaddaa waxaan aad ugu baraarujinayaa qolyaha reer khaatuma inay xil weyn iska saaraan walaalnimada oo la waayaa waa shay qadhaadh in walaalnimadu macaan tahay maaha shay u baahan daliil يعني قرحة إني قرحة هذا ثلاثة دليل تص وشيء هذه مثلا جرادة أما هتشوجين جروي أما هتشوجين صحدير احترام كودي تقدير كودي إليه سواء حبك لو سوء لها خلاف وي مدى إن للسوء حليو وقد يدعى الحليو آدي أربع مختلفين سؤال جابان تفضل عبد الولي قاسي فرولة إن مركل بدو السنة عليكم كيفاد سرنا سبارون أمرون أبا عبد الولي بحرون أنا aragtidayda in badan Cabdiweli baa roon laba bashar oo la isku soo celiyo ma aha laba la is agdhigi karana ma aha Cabdiweli wuxuu doonayaa inuu siyaado qaato oo laakiin kan jiritaankaaga ninkii talix ku soo duulay wixii la arkay ka dhigay ee abaal mariyay ku sida la arkay u galay ninkaas waa nin taariikhda baalmadow ku leh la mid ma Cabdiweli waa ka dhow yahay waxaan rajaynayaa in sida ugu dhaqsaha badan leh mufaawadaadka la wada gelayo si kastaba ha noqotee isaga laba waxyaabo sir nacaybna ma jiro oo qof isir ahaan ku nacab maaha dhul aad leedahayna ma haysto laakiin siyaasad ahaan baa la isku diiday waxaa jira mubaarak dad badan baa waxay isweydiiyaan cali khaliif galaydh oo ah madaxweynaha maamulka khaatimo Somaliland buu dadka ku wada مالو دوريسي وبحيي وحشجعي إن أسمالان والهذا ولا بلاغيه بتلانسه وكجاب سده وحيرانه و يجاب تسيب البروني يور هذا والهذا بلاغ العين هذا يري نين أضوي علىها كهلا أو فكرة خاتمة أن من سنين أو لراسبانش ما لو أراك هذا القصص واسع مرة يري أنا قال له حقوق هذا ذاتك سمالان ما أمين سنة وإنسان قد يهدي عد قد يدي إذا كان حيسه ولا وضح الله يهودية إسرائيل عرفت بوا وضح الله 1948 كبا قبصدين بلقوا دينا وهايستان وضح هذا الكون واجرة لكن مسألة وضح هذاك السماضة إسكالي السماضة بروفيسور هو يكسر رأيه ومرجع أساسي قال لونه قنايو شردنا هو يكون حرنتها شردنا يكون حرنتها وحوي تاكل قدام بيصير لك SSC أيليات هاي مركز كم حدا بوضح هذا كبلا قنايا marka shardina waa ku xirantahay qaraarkana kaligi male isaguna ma gooye isma gooye hadii intaas jirto qadiyada ninkan aad ka sheekeynaysid in yaraan isdul taago waa si aan mujtamac u xisaabtama ama waxba ka khaldan waxa laga yaabaa habkaad u xisaabtantay waxaan ahayn inay wax kale ku soo baxaan aan tusaale ku sii xoolo tusaale ku cay ninkan waa nin xoogaa xagga midabka ahmar ah oo maartay meel istaagli gabadh buu arkay aqli badan laakiin aan quruxdeedu badnayn wuxuu yiraahdaa isguursanno si aynu u dhallo wiil quruxdana aniga iga eeg aqligana adiga kaaga eeg weydiido waxay tiri ku qaadan maayo sababtu waa maxay waxaan ka baqayaa inay si kale wax u dhacaano quruxdana oo aniga iga raaco maxaa ku aqligana adiga ka raaco marka xagga aqliga waa nin aqligiisa iyo habka uu fikiraya aanu adkayn waxaan kuugu darayaa dadka qaar baa yidhahda waa aqoonyaha qofku waxa uu sito haddii aanu garan karayn dameer malab la saaro dusha lagaga raray suban dahabna uu u dheer yahay oo kadib jiray dadkii waday oo dihaal ku helay hawd dusha wuxuu ku siday nimcada aan dareemin bal tasawur dahab uu sida nimcu sida waxaan saaran
ما قران كرايو قران كينو دوا كله يحمل أسفار بئس مثل القوم يعني ضمير ملب للصاري وكذا أقونته هدانا قيم إيه أخلاق لهين دقن إيه تضنم لهين تفكير إيه وحقبض لهين أرنتي سؤون هدي اللي يرهدو صلاة سيلو كذا وحورنا على الخليفة بقى كده بيه صلاة وحبسانته هدي اللي يرهدو يعني وانين أركتدي سؤال وقليل اللي عقل يسمع في ما وحوي يعني وانين أركتدي سقابن تهاي وحو هدلا مركب خير خاتم ميل جاره وكل لا يسقى صهر مريء اللي يرهدو سأل قريان جرائم كأيجليان معمولات ونموتيان عيب تخاتمه والنوع عين كاسوي وانا نوع أفراد مركا ونوع كحدا نوع عادات كلاية يعني كشيء كيني مركا السجى برنامج كيسو معها برنامج حكمة يقرش يعقل منه كصوب حي ومضنعيب وي مركا السجى تيسو هذا الكيسو معها هذا وحد ما يهذا كخليف وهذا الصحة هدي عدا كعحدا تهاي إن اللحى جوتي ده عقل جبنانا ككفرية مسألة لبعض أحتن بوتلان وحيدان لكل حادث الحديث أما جوابه بهذا البيلات وحلقة يا أبا مرمرك قاركود إن الله بشر أتكلم دوراني سيد وحغيري هنا وماشي أولين أنتوا سألكوا سيد دونتي نبي خضر ودلوليني وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة إنه دو حد دونتا أقونتوا ليه هي الدلولي ودبعت له جيستو شرعي عقلك من ده ما أقوله إلا جت عادنا الشرع ما أقوله لكن هو الدور بضي إنه دلوليو ودونتو وبدباتو هدي الله بدي بعطوا هايستا وحدور بضي ساعة ولا يسكع نما كنقول كين هايستا هدي أي أقوله ما أنت ماشي أي تاجين ما أنت مقال بنخريه وحي تاجين هنا إلى هذا ورمرضا أحمر قاهي أي كتالو سومالي لانت قلت إنها تالو أنا ويدي كتجنو يجي باقوستي مركا أيهما أولى إن أضو حلقة يبسطوا الله هذا الشو فكر أهان يا عقل أهان يا مبدأ أهان با أنا بعد بنسول وين يعني الله هذلو مركا شروط ده اعتماد شرط جد شروط ده كحولان إجراءات شروط ده والله هذا ما تشرى تسمع شرط واحد شرى أمر السياسي اللي في الشمال لان كدحية ضد بدن وكسر كده دجانا الخاتمه بشوجا ماشى واحد شرى كرهني ندسك عيد بتين باش محمد عداء وقدومي كحيان كبرلمان كيمان قدومي كحيان لو حيدهان ما دو دمران كدعو حن داورنا يدري ليه هي باش ومش ما ضاني أرضو المها كرسو ومش زي هذا كتشو سو ما متليه ما متليه الشمال لهان أو متليه الشعبان مثل بخاتم وكله سيدا يجيبوا لهان وكله المها كرسي اللي بيجري نمان كروزو بس وجد دجانا خاتون واجوبان إن تعليق بالكوبان كبحينتا ومن يهين الله فما له من مكرم ارتقف إلى هاي إهانيني وحكرامي كلام كذا ما نتانقرات صدي خيارك نكي وقني سنابوها هبين قاعد ما أرك إنك أمه ما هي وحكوي عيش عيالك مالك من ديانته المهاجة كورسو دين تود وحبك هم قلين عرفتاكم مهما هذا أنا قاكو أقولاني كورسو المهاجة ومليونير وقد يدنا كبح ما يدير وعوي وافعل ولا تفعل اعمل ولا تعمل وعم كفرون صميوي يعني لا له رأي ولا له يعني ما عنده شخصية أوكي مثال بانفسينية قفكم مركم مروءة ليه الشخصية ليه الدبنمة ليه ولا جاهي بديستا صيدة أسد كلباحة أوكل حتى هدو قفز كتير ولا جاهي بديستا على خليفة وحل جي صح دير يسوي قفز كم هل كان لقيه بلقى هي بدي سنين ولا بكاي بس المهير اللي مسيحية بالك كيو الشقيني الله ميدا مركا الرجل المروءة قفك شخصي مروءة ضله شخصية ضله ولا هي بدي يستا وحلم بدي هي كالأسد الذي يهاب ولا هي بدي يستا قفك الهين مروءة لكن كون أحسن قفك الهين حتى غنيها هذه والإهانية وحلم بدي هي أي مثل الكلب لا يهاب لقد حتى هدو ذهب هدي حتى لقوني تي وقد سؤال الذهب تاعي والإهانية مركا إهانة أنا نفتي سجع بضي تدخل سنة سجع غير محمد عبد من أشرف بشر عائلة ظواهرك وقلنا ضيف سن وقو كرتضا بضي وقو لقن كوعن وح إهانة أنت عليك يعني سوى مع القبينة وح أهيدين وينهدو سم من كلبك يأكلك أي جا ناحية هاكل عنه
maalkiisi iyo fikirkiisi iyo dadnimo wuxuu lahaa intaasay ka dhigeen waxay abaal uga dhigeen waad aragtaa aan tusaale kale ku siiyey nin baa reerkiisi ka tegey inan yar iyo eygii ilaalinayay ayuu meesha kaga tegey markuu ka tegey ayaa inankii yaraa waxa soo weeraray mas eygii wuu turturiyey maskii buu dilay ninkii guriga lahaabaa soo noqday wuxuu u yimid eygii oo afka ku leh dhiig dabeedna markiiba qalbadiisa waxa kusoo dhacday inankii yaraa buu cuna isagaa nafsanbu 3 xabadood ku dhuftay dabeedna wuu dhintay abaalgudka eygii muddada in yar dabadeed wuxuu arkay markuu meeshii soo galay inankii oo nabad qaba iyo mas soo galay oo uu difaacayo iyo marka waxay u baahan tahay kartoon inta la sawiro buug dhan laga qoro waana soo wadaa buug baan soo wadaa qariiban insha Allah ta'ala inkastoo just intiisa badan uu carabi ku qoran yahay oo isleeyahay ilmahayga aad uga faa'iideysid haddana aan ku tilmaamayo dadkan taariikhda galay iyo dadkan ka hadhay marka ninkani taariikhdiina waa ka hadhay naftiisana mithaalka uu taagan yahay waad aragtaa usradii uu ka dhashay aan kuugu noqdo Ali Khaliif maalintii la doortay lagu doortay Saxdheer ayay qolyahani keeneen inuu yidhaahdeen waajiho wax ku dhig had iyo jeerna waxa la keenaa marka la doonayo inay qariyaan jaraa'imka ay galeen iyo sidaan uu sheegay wuxuu yidhi tuulo yar oo aan ku dhasho Saxdheer la yidhaahdo ayuu Ali Khaliif taagan yahay inuu ku dhashay ceeb ma haddaanu dee nijaas ahayn inuu ku dhashay inay tuulo tahayna ceeb ma laakiin wax lala yaaba qofku waxaan islahaa wuxuu tirinayaa dembigaasuu galay kaasuu galay laakiin tuulo yar oo aan ku dhashay maantoo dhan ku celceliyo wax ka dhig يعني وأنا أركتي سؤال كوبان تاي عديد تاي. مبارك وحنا سو قارني كنت يقولان تكي لو سؤال ربما كنت بسينيا دولة الفدرال كمدحويني يرسلوا ساري وسايستان ما دام الخطوات هذه السمالوين بعد ما تشاء إن ما أنا همرك جوه رئيسي ما حيكون تاي يرسلوا سارها مدحوينها سايستان. وليها خاطر واحد كم بدها هاي قولي وحيابها نولي بأركتي بولي أنا ما كان هذا اليوم أركتي ذا هذا اليوم عد من التليو واي وجهات النظر كي أنا مسلم حاركم بار عبر أيه وأيام ضرو وحل فيلي يو وحل لا كل ماي أبشر بعضله وحيري أنا مركي لك الدورانية من كان هذا هي شريفكي أنا شريفكي بهذي لكن على خليفة جروب كي سو ساري وحيد هذين شريف كدب له معلي كري لكن مواطن بوها ما كأبشر بعضله مركو قبل يوحي دوقي لقى مرة السنة أفكار ديدي ونعي دوقي دونا دعانا وقدر ما يروحوا كصوب بلعب مركي يروحوا دوقي هو المحل اليوم كل الدجال إن ضلكي يضدكي يدين تبودمية صومة دكتاتورني ممكن يدور العد صومة نكستو ولا كتب على حوض البارتون على أي حال مركو وذي وحي دوقي دونا دعانا وقدر ودنا دبتين أما الدولة دي ما موتشي عدو كداوية كادورتا لا بأس وقت ما ضبستي أيام درada ummadda Soomaaliyeed ku habsatay kamid tahay ra'iisul wasaare ma aha kii horeeyay ninkani eriyo waana nin mashquul ku ah maslaxadiisa khaaska badii waa la iibiyay ummad Soomaaliyeed badii bay ku dhamaatay ummadii waa barakacday maslaxad uma soo wado baarlamaankii wuxuu noqday wax la iibsanayo marka ayaan daro weyn weeye waa hore ugu badbaaday mid hore u eriyay kana uu wada laakiin kan beesha caalamka badayna uga heelisay اوكي كنت يقول انا شعب كرير خاتمه بعد قضيه انت بدنا نقول ليسيد ما حد يقع كلها تلين ما اسو جيدين لاي وكلمه aan ugu jecelahay waxaan soo jeedin lahaa inay ogaadaan waxa u horeeyay midnimada inay ka shaqeeyaan habkii khaatimo oo dhan la isugu keenay lahaa in wixii khilaaf habkii loo xalin lahaa cid aan loo baahnayn ma jirto cid laga saarayaana ma jirto cid khaatimo gaar u lehina ma jirto SSC oo dhan bay ka dhaxaysaa in hareeraha la iska taago oo la wada qabto oo midnimadeeda la raadiyo oo cid walba sidii loo soo gelin lahaa la keeno ayaan ku talinaya midnimada in midnimadu ay noqoto awlawiyaadka koowaad haddii geedka la beeri karo biyo la'aan ama uu geedku bixi karo qorax la'aan khaatumo way shaqayn kartaa wayna istaagi kartaa haddii la rabo khaatumo inay shaqayso waxa ugu horeeya waa inuu noqdaa gogol la fidiyo oo nin kasta loogu yeero anaa idhi ma tabshi nin walba la yidhaahdo qadiyadda aad leedahay qaybtaada qabso ninkii la odhan jiray indhasheer
أبان أقدرياه كلمة حكم كمان توديبي على خريف وديبي كلمة بويلي من البنك قرن وحول خاتم صاحب بضم بعض وكلمة يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام جوامع الكلمة بالسي كلمة ضيّر لكن معنى وين حبارسن كلمة دهني حدي الضم بوق لقى قرا ولا قرا وكلمة قوبل لكن معنى وين حبارسن خاتمه وحي أباهم تهاي عد إسجارة تاكتا لا شقيسة وهالجنتا وحلقبتها وقت كله مسا مال يجهد كوب حصة ميل جارسيسة مركا وحليه مدني ماله وين مدني ماله هلا لو صعيا انت لو ودي كريو إلا فادي انت صان أنا جبيني داوديال waxaan inta ku soo gabagabeynaa barnaamij gaar ah oo idinka imaanay si toos ah Saudi Arabia gaar ahaan bariga Dammam waxaana marti inoogu ahaa studio Dambal TV Mubarak Abdi Jiir ama Mubarak Abdi Arabaki looranayaba waana siyaasi ama aqoonyahan oo ololaya qadiyada khaatimo barnaamijkan waxa ay diidaynayaan anigoo ah Awil Ismaan Jaamac Awil Cagare intaan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmana waxaan idinkaga tagay sida iyo kulanti dambe aad baan شكرا جزيلا شكرا